waxaanu ku faraxsannahay xanaanada lanoo furay waayo dumarkayagu markay umulaan qaarkood way dhiig baxayeen qaarkoodna way ku dhibanayeen waa maayar qiimo leh waa maayar dhulka iyo dadka wax u qabtay waxaanu ka soo bilownay tuulada Laaca oo aanu ka soo furnay rugtii koobaad ee caafimaadka waxaanu ku xigsiinay tuulada Boqor waxaanu ku soo xigsiinay tuulada Carro Guduudan haddana waxaynu joognaa tuuladii Odax afarta rugood waa afar rugood oo caafimaad oo isu mid ah oo isku dhismaa isku qalaba isku adeega waxay ku biirayaan 14 rugood oo hore ay dawladda hoose Gabiley gacanta ugu haysay oo ay dawadooda iyo daryeelahoogaba lacagtooda bixinaysay oo iyadu ka shaqaysiiso waxay noqonayaan 18 rugood iyadoo 18 ka rugood ay noo qorshaysan tahay sanadkan inay 3 kamid MCH u dalacaan xidhinta iyo taysa iyo caada runtii waa waxay noo soo kordhay marka loo eego baahideenana de fari kama qodna dadkeen waa dad deegaana oo ballaaran ilaa 110 tuulo guud ahaan gobolka ku yaala tuulo walba waxa u baahan tahay caafimaad iyo waxbarasho waxaynu haynaana waa kooban yahay hase yeeshee haddaynu dadaalno waxaynu rajaynaynaa inaynu meel walba gaarsiino marka anaga ka maamul ahaan siyaasadda iyadu waxa weeye runtii inaanu caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo baahiyaha aasaasiga runtii awoodda saarno siyaasaddaasay daba socotaa aad baanu idinka mahad celiyeen martiqaadka iyo sida weyn aad u soo dhaweyseen waftiga furna xarumaha caafimaadka tani waa meeshii afraad dadweynaha reer Qodax kaliyaana waxaan ku dhiirigelinaynaa dawladda hoose Gabiley ay dhistay inay ilaashtaan in badan baynu mataqaanaa Gabiley loo yaacay hooyada dhiig baxasa maanta sawir haysataan dhismihii qurux badan shaqaalihii iyo dawadiiba waxaad ku boorin lahaa inaad ilaashataan in aynu xariga ka jarno goobtii caafimaad ee ay idin hirgelisay ama ay idin dhistay dawladda hoose ee degmada Gabiley oo ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin golihii deegaanka ee hore oo gudoomiye ahaa isla gudoomiyaha golaha deegaanka ee maanta gudoomiye Maxamed Amiin ma ahayn halkan oo kaliya halkan la afar baanu maanta xariga ka soo jaray oo kamid ahaa waxqabadkoodii hore inta sidaa maayarku idin sheegay oo ku biiraya kuwii hore ay gacanta ku haysay degmada Gabiley maanta halkan waxa inoo farxada inaynu xariga ka jarnay afar helbooson maanta xil xariga ka jarnay waxa ilaahay mahadiya hawsha waxa hirgeliyay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley Maxamed Amiin runtii marka koobaad horta waxaan u mahad celinayaa golihii hore deegaanka ee uu hogaaminayay meey gudoomiyaha iyagu Maxamed Amiin Cumar Cabdi horumarkan ay ka sameeyeen deegaankan waxaanu ka soo bilownay Laaca halkaas oo xariga ka soo jirnay goob caafimaad Healthy Bows waxaanu nimid tuulada lafta Boqorka oo iyadana xariga ka soo jirnay waxaanu tagnay iyadana Carro Guduudan oo iyadana xariga ka soo jirnay tii afraad ee marnaa waatan waxaanu shaqo u baxnay xariga inaan xariga ka soo jirno afar helboys oo caafimaad anagoo og inaanay intani waxba u tareen dadweynihii guud ee bulshada Gabiley
xadhiga ka jarno 4 helboos oo ugu dambeysay tan qodax ku rajaynahay ka gol deegaan ahaan inaanu caafimaadka iyo waxbarashada uga shaqeyno marka mar haddaan gurigan helay oo nafsaana helay waa wixii wax weeyaan waa aad baad mahadsan dawladda hoose waan aad baan ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan baad naga yeesheen ilaahay baad ka jisaa sunnada maanta waxaa xadhigga laga jaray xanaanada carra guduudan qaynaa dawladda hoose ee Gabiley ee MCH ka noo samaysay محمد أمين مايرك محمد أمين شقديسو سوماليلان oo dhanbay wada gaadhay intii uu horeysay wax loo qabtay ee golihii hore wax u qabto ee uu gudoomiyaha Maxamed Amiin Cumar Cabdi uu hogaaminayay oo kow ka ahaa waxyaabihii ay qabteen iyaad nasiib u yeelateen helbooska waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa arintaas oo culays badan oo anagan haystay ahayd maamulka golaha deegaanka ee uu kow ka yahay Maxamed Amiin si uga soo jawaabeen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay waxaad haysataa dad hiila oo ugu horeeya maayirka magaalada Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo maanta xadhiga ka jarayna hel boosta ugub ma ahayo waa curad oo arrinku waa wax qabadka waxay ka mid tahay oo ka qabtay deegaanka Gabiley maayirku waxaan ku soo dhaweynaynaa boqor oo maanta ay nooga furayaan rugtii caafimaadka ay noo fureen oo dawladda hoose ay noo samaysay mahad ilaahay baa iska leh waxaana mahad leh cidda noo hawl gashay ee na ogaatay baylahdayada waxa weeyaan health booska uu yeelan doonto deegaanka carro gududan ama deegaanka korjiga wuxuu noqonayaa health booskii saddexaad ee degmada Arabsi ay yeelato maalinta berri haddii ilaahay idmo waxaan idiin soo diri doonaa maamulka iyo dhakhaatiirta kale ka howlgala cusbitaalka guud ee degmada Arabsi oo berri toole iyaguna halkan ku shaqeyn doona si dadkii deegaanku ay u bartaan goobtan lagu shaqeynayo haddii ilaahay idmo berri toole markaa adeeg ay bixinayaan wuxuu noqon doonaa adeeg free oo lacag la'aan